السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa dhici karta mararka qaarkood inaynu si caadiya u samayno arrimo aan u fiicnayn caafimaadka jidhkeenna ama xataa arrimo khatar ku ah caafimaadka jidhkeenna. Haddaba 6 arrimood oo laga yaabo inaynu inteena badani samayno ayaa lagu sheegay kuwo halis ku ah caafimaad qabka indhaha, waxaanay kala yihiin: 1. dabaasha joogtada. Dabaashu waxay u fiican tahay guud ahaanba caafimaad qabka jidhkeenna, waxaanay si gaara ugu sii fiican tahay caafimaad qabka wadnaha iyo nidaamka isu socodka dhiigga ee jidhka. Hase ahaatee, inaad dabaasha ka dhigato mid joogto ah adigoo aan xidhnayn qalabka loogu talagalay dabaasha ayaa la sheegay inay indhaha ku keeni karto ama ay ku samayn karto caadka ku samaysma indhaha. Sidoo kalena waxaa dhici karta in nooc ka mid a bakteeriyadu ay soo raacdo qoyaanka indhaha, taasoo sababi karta arrin khatar ku ah caafimaadka indhaha. Arrinta labaad ayaa ah qalabka dumarku ay ku isticmaalaan indha-kuusha ay indhaha marsadaan. Haddii uu yahay qalabkaasi mid duuga ama marar badan lasoo isticmaalay, ayaa lagu sheegay mid aan u fiicnayn, waxyeello caafimaadna gaadhsiin karta indhaha. Arrinta saddexaad ayaa ah isticmaalka telefoonka gacanta ama kombiyuutarka ama shaashadaha kale la daawado oo si xidhiidha loo daawado waqti badan ayaa iyaduna halis ku ah caafimaad qabka indhaha, waxaanay khatartani sii badan kartaa marka meesha lagu isticmaalaya ay noqoto qol madow ama meel aan lahayn leydh ku filan. Arrinta afraad ayaa ah inaad diiddo inaad xidhato muraayadaha laga xidho qorraxda ee dhakhtarkaagu kugula taliyey, waase marka aad ku nooshahay deegaan heerkulkiisu aad u sarreeyo. Arrinta shanaad ayaa iyadana lagu sheegay isticmaalka sigaarka iyo waxa la midkaahi waxay halis ku yihiin guud ahaanba caafimaad qabka jidhka, waxaanay halis gaara kusii yihiin caafimaad qabka indhaha. Arrinta lixaad ayaa lagu sheegay inaad seexato qol habeenkii oo dhan ay ku xidhan tahay marawaxadda la isticmaalo xilliyada kulaylaha, waxaana lagu sheegay arrintan in haddii habeenkii xilliga hurdada ay kaa dul shidnaato marawaxaddani ay meesha ka saari karto qoyaanka indhaha, taasoo marka dambena indhaha dhaxalsiin karta inay indhahaagu noqdaan kuwo qallalan, kadibna aad dareemi karto cuncun, markaa kadibna aad la kulmi karto xaalad caafimaad darro oo aan wanaagsanayn oo soo wajahda indhaha. Isla dhinaca kalena, haddii aad ogtahay beerku inuu yahay xubin ka mid a xubnaha ugu muhiimsan jidhkeenna, waxaa jira waxyaabaha aynu cunno iyo waxyaabaha aynu cabno qaarkood inay u wanaagsan yihiin caafimaad qabka beerka, halka kuwa kalena ay u daran yihiin caafimaad qabka iyo shaqada beerka. Haddaba aynu soo qaadano 10 arrimood oo muhiim u ah shaqada iyo caafimaad qabka beerka, waxaanay kala yihiin: 1. toonta inaad xaddi kooban ka isticmaasho ama cuntooyinka ku darsato waxay beerka ka dhigtaa mid ka madhan sunta iyo cillad kasta oo waxyeeli karta beerka. 2. cabitaanka laga sameeyo geedka shamandar oo ah geedka aynu u naqaano baytaraafka ayaa isaguna beerka ka sifeeya cillad kasta oo waxyeeli karta beerka. 3. kaarooga ayaa isaguna muhiim u ah caafimaad qabka iyo shaqada beerka. 4. shaaha cagaaran ayaa isagana waxaa ku jira maadooyin kor u qaada shaqada beerka kana sifeeya beerka sunta. 5. sharaabka avocado ayaa isagana cilmi baadhis lagu sameeyey waxaa lagu sheegay inuu ilaa xad kor u qaado shaqada iyo caafimaad qabka beerka. 6. tufaaxa ayaa isagana waxaa ku jira maadooyin aanu beerku marna ka maarmi karin, korna u qaada caafimaad qabka iyo shaqada beerka. 7. saliid saytuunta saafiga ayaa iyaduna beerka waxay ka saartaa subagga aan u wanaagsanayn caafimaad qabka beerka. 8. liin dhanaanta ayaa iyadana waxaa ku jira faytamiino iyo borotiino badan oo si joogtaa beerku ugu baahan yahay. 9. cabitaanka laga sameeyo jirridda geedka kurkumka oo ah geedka aynu u naqaano huruudda ayaa isagana waxaa ku jira maadooyin ilaa xad ilaaliya caafimaad qabka beerka. 10. biyo kugu filan oo aad si joogtaa u cabto ayaa iyaguna beerkaaga waxay ka dhigayaan mid ka nabad qaba xanuuno badan oo soo wajihi kara. Ilaahay baana cudurka iyo caafimaadkaba haya. Mahadsanidin.